كريك رمضان كان متكي يكون فعنا نولش هذا. بسم الله السلام عليكم الصلاة والسلام على سعادة الغالي وحرجنا في عنتين سودو هذا صلابتي الصلاة والسلام أحسن رمضان لابد كل هاتي له هنقول نقف كي هورا بدل نولش هذا. كريك رمضان كان متكي يكون فعنا نولش هذا. بش رمضان وحي كم تهاي بلها سيدا أقول أخسيها بدن إنه قدام هذا وليبه إنكو أنا درين سنين حلقة أفريقيا هردادي سلادي يسكرولين عن نمالين أو مالنتي waqtigu wuxuu ku dhamaanayaa si lama filaan ah inagoo xitaa aan dareensaneen balse ka waran shaxdaas haddaan bedelno oon waqtigii aan uga faa'iidaysano sidii ugu mudneed uguna fiicneed saaxiib saacadu way socotaa ramadaankana wuu dhamaanayaa ramadaankan ma rabo inuu noqdo mid oon iyo gaajo oon keliya ee waxaan rabaa inuu noqdo bishii aad dib u dhalatay naftaadana aad hoggaankeeda dib u heshay noloshaadana aad maamuli kartid weliba sidii aad doonto maanta waxaan isla eegi doonaa ramadaankan oo weliba inta yar ay ka harsan tahay sidii aan uga dhigi lahayn bishii ugu fiicneed ee nolosheena iyo maalmihii ugu fiicnaa nafteena axmed wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah kaasoo sanad kasta dhihi jiray ramadaankan ayaan isbedelayaa laakiinse gabagabadii bishii markii la gaaro ayuu is arki jiray isagoo xitaa meel cidla ah taagan aanan wax isbedel ah samaynin xitaa qur-aanka hal khatmi xitaa aanan samaynin aanan uga faa'iidaysan ramadaanka sidii ugu mudneed habeen ayuu isweydiiyey haddii kani uu yahay kii ugu dambeeyey ma sidan ayaan ku khasaarin lahaa noloshiisana ma sidan ayay noqon lahayd saaxib sheekada axmed ma ahan mid isaga keliya u gaar ah waa sheekada qaar badan oo inaga naga mid ah laakiinse sanadkan iyo ramadaantan waa inay ka duwanaataa kuwii hore sababtoo ah qalinka noloshaada adiga ayaa u haaya waa hadba iyo sidii aad u qorto qaabay noloshaada oo u qaabay sidii aad doontid kuna raali tahay kuna qanacsan tahay ramadaanku ma ahan kaliya dhaqan soo jireen ah ee waa isbedel ruuxi ah kaasoo soo socday tan iyo sanadkii labaad ee hijriyada iyo waa bishii uu soo degay qur-aanka kariimka ramadaan waxaa loogu talagalay oo loo qoondeeyey in la jebiyo silsiladaha nafta si loo helo xornimo dhab ah iyo naf hoggaansan cilmi baarisyo la sameeyey dhammaadkii 2025 waxay muujiyeen in 70% dhalinyarada Soomaaliyeed ee bisha ramadaan ku lumiyaan ugu yaraan 6 ilaa 8 saacadood maalintii baraha bulshada TikTok, Facebook, YouTube, Snapchat. Tani waxay ka dhigan tahay inaan luminay fursadii ugu fiicneed ee nolosheena uguna muhiimsaneed taasoo aan ku dhisi lahayn focuskii ugu sareeyay nolosheena ramadaantu waa fursad aan dib ugu soo ceshano xakamaynta nafteena iyo rabitaanka maskaxdeena ربي صلى الله عليه وسلم عليه وحوليه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بشي رمضان ومدي لسودجي دحديد القرآن الكريم isagoo dadka u ah cadeemo iyo hanuun iyo midkii kala bixinayay xaqa iyo baadilka islaamku wuxuu inoo sheegay in bishani ramadaan ay tahay madraso iskuul ma ahan kaliya in caloosha laga soomo oo cunto iyo biyo laga soomo oo kaliya ee waa in laga soomo shahwaadka nafta oo idil sida xanta carada waxyaabaha maalayacniga ah ee naftaada iyo noloshaada aan u fiicneen gebi ahaantood waa inaad ka soonto haddii aad uga faa'iidaysid bisha ramadaan sidii ugu fiicneed uguna saxsaneed waxaad helaysaa mental clarity maskax nadiif ah waxaa kor u kacaya asluubtaada iyo samirkaaga qofnimo caafimaadkaaga jirkaaga oo fiicnaanaya iyo miisaankaaga hoos u dhacaya balse haddii aadan ka faa'iidaysanin waxaad kala kulmi doontaa khasaaro oo ah qoomamo iyo dareen guilty inaad dembi dareentid sababtoo ah bil muhiim ah iyo waqti muhiim ah ayaa ku dhaafay ood khasaarisay inaad lumisay fursad dahabi ah ee noloshaada taasoo ah khasaare aad u weyn oon iyo gaajo aanan abaalmarin lahayn iyo daal jireed aanan faa'iido lahayn waxaan kula wadaagayaa 5 tallaabo oo aad samayn kartid inta ka harsan ramadaankan si aad ugu faa'iidaysid ramadaanka sidii ugu fiicneed dhis qorshe digital detox ah kaasoo aad ugu soomaysid digitalka iska tirtir abiska ama barnaamijyada waqtiga ugu badan ka qaadanaya bishan kaliya qorshe salaad qoto dheer salaadaadu ha u dukanin in lagu eriyanayo oo kale ay u duko sidii inaad la kulmaysid boqorka boqortooyada allah hadaf cad oo quraan ah yeelo ha dhihin quraanka waan akhrinaya ee dheh kaliya maalintii juz ama 2 juz ayaan akhrinaya akhlaaqdaada iyo dabeecadahaaga wanaaji xanta iska daa caradaada control maalayacnigan iska jooji daryeelka jirkaaga cab biyo kugu filan laakiin iska ilaali sokorta badan xilliyada habeenkii si aad habeenkii u firfircoonaato salaado badan aad u dukato sida taraawiixda iyo tahajjudka insha Allah
saaxiibkii qaaligow ma ogtahay in dad badani ay hoos ugu jiraan ciidda iyagoo rajeynaya inay hal mar keliya ay soo noolaadaan si ay ugu faa'iidaystaan bishaan barakada badan ee qiimaha leh. Adigu fursadaas ayaa lagu siiyey. Ramadaanku ma ahan ciqaab ee waa gacmo furan oo Rabbigaaga uu ku soo fidiyey si aad asiga uga soo laabato. Ha dhihin dambi ayaan qabaa ama dambiyo badan ayaan galay. Eebbe wuxuu leeyahay laa taqnaduu min raxmatillaah inna Allaha yaghfiru dunuuba jamiica. Ha quusanin naxariistayda, anigu dambiyada dhammaantood waan dhaafaa. Isbeddelku ma bilaabmo beri ee wuxuu bilaabmaa hadda haddii aad go'aansato. Haddii aad doonayso noloshaada inaad ka hormarisid dhan kasta, maskax ahaan, akhlaaq ahaan iyo weliba muuqaal ahaan, ku soo bir SG Community. Waxaan nahay bar dhiirigelisa dhalinyarada Soomaaliyeed si ay u noqdaan nuqulka ugu fiican ee noloshooda, naftooda ay horumariyaan, noloshoodana ay u dhistaan. Ha ilaabin, ha seegin, ku soo bir channelkeena. Subscribe saar, like saar videogan, una share gareey qof saaxiibkaaga ama kuugu dhow aad la jeceshahay inuu sidaadoo kale noqdo. Halkan kaliya kuma barayno diinta, waxaan ku baraynaa sidii aad u noqon lahayd qof hadaf iyo hiigsi nololeed leh, kuna howlan gaaristiisa. Ugu dambeyntii waxaan ku reebayaa su'aashaan: haddii Ramadaankan uu noqon lahaa Ramadaankaaga noloshaada ugu dambeeyey, ma ku faraxsan tahay sidaad ugu faa'iidaysatay mise waad ka shalaynaysaa? Hadda weli waqti ayaad haysataa, inta ku hortay ugu faa'iidayso sidii ugu mudneed. aad iyo aad baad u mahadsantahay asxaabtayda qaaliga ah. Isku soo laabasho wanaagsan, ku soo bira channelkeena, share gareeya, waxay naga caawinaysaa inaan si fudud u korno insha Allah. Waxaa inoo balana videoga insha Allah. Ramadaan Kariim. Maca salaam.